waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga shirkii wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya shirkaasoo labadii maalmood ugu dambeeyay uga socday labada wafdi waddanka Turkiga isla markaasna ay marti gelisay dawladda Turkiga waxaa laga soo saaray warmutiyeed ay labada wafdi ku heshiiyeen kaas oo goobjoog ka ahaa safiirka waddanka Somaliland iyo Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Kani Toron warmutiyeedka laga soo saaray shirkan ayaa waxa ku xusnaa oo muhiimadda ugu weyn ahayd heshiis laga gaadhay murankii hawada ee ay ku muransanaayeen wadamada Somaliland iyo Soomaaliya kaasoo ay labada dhinac isla garteen in loo saaro guddi isla markaasna guddidaas beeskeedu ahaado magaalada Hargeysa sidoo kale waxay labada dhinac isla garteen in shirkan oo kale la isugu soo noqdo 120 casho kadib isla waddanka Turkiga isla markaasna ay wada hadalladu sii socdaan waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay safiirka waddanka Somaliland iyo Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Kani Toron oo isaga dalkiisu marti gelinayay shirkani Billahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dear brothers, now the second day of official talks between federal government of Somalia and the government of Somaliland has been concluded. We have got a communique, and I would like to read this communique to the press first. Communique of the Somaliland and Somalia dialogue held in Istanbul on 7th to 9th of July 2013. In accordance with the framework agreements reached in Scheveningen, Dubai and Ankara, delegations from the government of Somaliland and the federal government of Somalia met in Istanbul between 7th and 9th of July 2013 with the assistance of the Turkish government. In accordance with the agreements codified in the Ankara Communique of 13th of April 2013, this round of the dialogue attempted to establish additional parameters to further clarify the relations between the two sides and gave a particular attention to issues that have arisen since the previous meeting. Somalia and Somaliland agreed to the return of the air traffic management from the UN and decided to establish a joint control body that is based in Hargeisa to lead the air traffic control of both sides. It is also agreed that this body will propose a mechanism for equitable revenue sharing. 2. Committed to the continuation of the talks. 3. The next meeting will be held in Turkey within 120 days. dhinaca kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Soomaaliya Cabdikariin Guuleed oo isagu ahaa madaxa wafdiga dalkaasi Soomaaliya marka xiga waxaan u mahadcelinaynaa walaalaheen reer Somaliland runtii wada hadallada nala waday sida ay doodahooda iyo aragtidooda iyo fikirkooda mar walba ay u dhiibanayeen iyo sida ay maaragtay waxyaabaha mar walba dantu ay tahay runtii uga hadlayeen aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa sida kulli maqasheen heshiis ayaan gaarnay dabcan heshiisyadu marba xaalad iyo xilli ay marayaan anagu waxaan isleenahay dadaal aad u weyn baad bixiseen shaqo aad u weyn waa qabateen kuwa hadalladuna sidaan ku heshiin way sii socon doonaan qodobadii ajendaha aan ku soo wada qaadanana shirarka dambe iyo kulamada dambe insha Allah taala ayaa looga hadli doonaa hadda consultation iyo xiriiro gudaha iyo wada tashi gudaha ayaan dhamaanteen wada aadi doonaa dib aan isku soo laaban doonaa mar labaad waxaan runtii u mahadcelin lahaa dawladda Turkiga iyo walaalaheen reer Somaliland wafdiga ka socda aadan u mahadsantiin geesta Somaliland waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo ah madaxa wafdiga Somaliland ee ka qayb galayay wada hadalkani wasiir Maxamed Cabdilaahi hadaladiisii waxa ka mid ahaa dawladda Turkiga oo si walaaltinimo ku dheehan tahay u martigelisay kulamadan Somaliland iyo Soomaaliya dhexmaraya oo kan maanta halkan aynu ku soo khatiminaa uu kamid yahay dawladda Turkiga waxa kale oo aan uga mahadcelinaynaa taageerada gaar ahaan xagga horumarka ay Somaliland ay ka wado oo ay shacabka iyo dalka Somaliland ba ay ku taageerayso marka taa laga yimaado waxaa noo socday halkan shirar 3 maalmood socday
oo imika aanu soo gunaanudnay sidaa la akhriyayna waxaa ka soo baxay warmurtiyeed muujinaya in qodob muhiimad gaara u leh labada geesoodba in laga hadlay laguna heshiiyey waxaa kaloo shirka intii uu socday laga hadlay qadiyado fara badan oo dhinac walba leh oo loo baahnaa in laga wada tashado laga wada hadlo si fiican bayna doodaasi iyo hadalladeeduba ay u dhaceen waxayna ahayeen doodo horudhaca oo loo baahan yahay in halkaa ay kasii socdaan la tashiyo dhinacyo fara badan oo farsamo iyo siyaasad lena laga galo mararka dambena la iskugu yimaado labada geesoodna waxaa ka muuqatay walaaltinimo iyo dareen fiican oo ay arrimaha ku waajaheen sidii looga wada hadlayay waxaananu qeexnay labada geesoodba inaanu committed ku nahay oo aanu doonayno inaanu sii wadno wada hadalka oo mararka dambe aanu qodobada maanta laga hadlay aanu sii anba qaadno ilaa inta laga midho dhalinayo oo wax u cuntama labada geesoodba marka dambe insha allah ay ka soo baxaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.